السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا تجعلنا كحرن كومي ميديا waxaan idin leenahay waqti wacan oo wanaagsan meel balduka aad ka joogtaan iyo suul baan daawaneysaan halkan waxaan kusoo gudbinaynaa ama aragna inaan ka hadalno barnaamij ku saabsan idaacadda wadnaha ee magaalada muqdisho barnaamij aad u fiican ay soo hirgelisay barnaamijkaas magaciisa hore waxa ay tartanka ay macnaha hibada jilka cusub waxaa lahaa tartanka hibada jilka cusub haddana waxaa loo bixiyey muqdisho's good talent macnaha barnaamij aad u fiican waa barnaamij horumar leh waa barnaamij macnaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee hibada leh ee fanka jecel kusoo macnaha ay kusoo bandhigaan waayay macnaha ama qaab kale fanka kusoo galaan waayay ee hadda kusoo bandhigay macnaha talentigooda ama hibadooda ku jirto waagi hore bismaadkii aniga kuma soo gaarin laakiin waxaa lagu maqaalaa in macnaha dhalinyarada hore ay xilligaas jirtay qof walba oo raba inuu heeso ama barnaamijka fanka soo galo inuu jiray masraxa meel loogu talagalay ay kasoo qayb galaan ama ay kusoo muujiyaan talentigooda marka hadda zamankan sida dawladdu dhacday ilaa hadda ma jirin barnaamij noocaasa ay dhalinyarada Soomaaliyeed kusoo bixiyaan talentigooda ama codka ku jira hadda idaacadda wadnaha ee magaalada muqdisho aad bay u fikirtay barnaamij fiican oo loo baahan yahay oo dhalinyarada Soomaaliyeed u baahan yahay soo bandhigtay barnaamijkaas sida u jeedna macnaha dhalinyarada hadda fanaaniinta soo baxay dhan ay heesi jiray aan dhegeysan jirnay kulli macnaha in maksar soo mariyaan heestooda background kusoo heesaan hees gooni usoo qaataan gurigooda kusoo samaystaan ma jirin fanaan hirgelay oo macnaha saan usoo baxay oo masraxa dad bulshada Soomaaliyeed inay wada dhageystaan oo la sugaayay oo soo baxay ma jirin macnaha kulli waxay ahaayeen fanaaniin ijaabkooda macnaha ka soo baxay marka warka aan ku sidaalin barnaamijka waxaa ka soo qayb galay dad aad u badan dhalinyaro aad u badan oo kusoo bandhigay macnaha talentiga iyo hibada ku jirta laakiin inta barnaamijka aan daawanay waxaa aad ula dhacay macnaha laba gabdhood oo meesha kusoo bandhigay masraxa kusoo bandhigay talentigooda labada gabdhood waxaa lahaa Nafiso Yaasiin Diiriye gabadhaas waxay ku tartantay Xaliimo Khaliif Magol ilaa naxariisteedii aad iyo aad laxanka jiibinta qaabka ay u dheeshay qaab masraxa soo istaagtay kulli waxaa la dhihi karaa macnaha waa fanaan u baahan in la dhiirigeliyo oo la kaabo oo macnaha lagu dhiirigeliyo sida ay macnaha kusoo bixleed hadalkii aan ku daalin asxaabta ahna ku jeclaan daawan hadalkii aan ku daalin qabal ila daawada kala iska ibar waa Nafiso Yaasiin Diiriye oo hore u tartantay dabadeedna soo noqotay Nafiso Yaasiin Diiriye oo hore u tartantay dabadeedna soo laabatay waxaan filayaa macnaha barnaamijkan kii ka hor inay ka soo qayb gashay laakiin meel hel gaarin sababtana macnaha ay tahay dad badan oo iyada macnaha iyada aad u fiican oo cod fiican dad badan oo ka fiicnaa soo baxday in nasiibkooda oo aad u saamixay macnaha in barnaamijka ka soo baxdo laakiin hadda waxaan rajeynayaa inay ka soo baxdo daawasho tartankii heesaha iyo hibada jiilka cusub Nafiso wareeg labaad baad soo gaadhay meel fiican baad tartanka ka timi dib baad u soo noqotay waan ku faraxsanahay markale waa kaas tartanka hore ee la qabtay waxay ka soo gaartay wareeg labaad aad bay u soo dadaashay heer fiican ay soo gaartay haddana macnaha bilow fiican waaye waxaan rajeynayaa inay ka gudubto waan ku soo dhaweynaynaa inaad hibadaadii soo bandhigto muqdisho iska taalanti magacuun bay isbedelay markii hore tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub buu ahaa laakiin hadda muqdisho hibay leedahay weeye sax maxaad noogu soo tala gashay markale waxaan ku tartamayaa heeskii Xaliimo Khaliif Magol Allah u naxariisto heesaheeda mid kamid ah heeskii dhab u qoftan saa u jeedaan macnaha waxay ku tartamaysaa Xaliimo Khaliif Magol waa qof isku kalsoon fiirso dhab u fiirso aad soo daa Dego danteeni aniga dalilo ruhada wacagaysto dayaya malite Dego danteeni aniga dalilo ruhada wacagaysto dayaya malite ruux talaadu dhaftana dhaxaynu aragne ruux talaadu dhaftana dhaxaynu aragne macnaha gabadha waa u jeedan qaabka ay u heesayso macnaha codka ma sha Allah aan sidii wada aad u dhaaftaan dhaxaynu aragne del ma joogte dhab u fiirso dhab u fiirso dhab u fiirso waliga del ma joogte dhab u fiirso dhab u fiirso waliga walaal
داب وفير سوليا معناها أصحاب سيدا جدا قفتان معناها آد يا آد مقول عد كذي سيدا اللوغ دي سيبوا البحر البخاب وهيستي وأكنتي إذا موسيقى لقراعين إذا مكسر لمرين مركب حالنا هاي مقدشة تالنتي معناها دتك مقدشة جوا تالنتي ليهين ودad badan oo iyada ku cad dad badan oo iyada ka fiican way joogaan laakiin waayay meel ay ku soo bandhigaan macnaha talantigooda asxaabtan aad ku jecelnahay saa u jeedaan macnaha qoftan waa ma sha Allah ani xaqiiqada taa fiiriyo heesta qaabka waxa dhan inta fiirisid macnaha qof filan u qalmooy laakiin nasiibka saacid waa macnaheena soo baxda dad badan oo iyada macnaha maanta ka xun oo heesiga ku ciyaarina hees soo qaada iyadana macnaha oo talenting aan leeyahay brank freeze hees qaadeen marka waa mahadinayna aad iyo aad baa u soo dhaweynayna idaacada wadnaha magaalada muqdisho barnaamij fiican inoo keentay يا سلام نفيسة ياسين ديرية هب مسرحة دي رنانتا إيا أوتكا يا سلام ما وجدين قد قدن معناها يا سلام ما بلسيان سو مرق waxaa u jeedaan macnaha qofkan in qof aad iyo aad talent u leh cod macaan oo wax walba ah inay tahay waxa rajaynaynaa inay ka soo baxdo barnaamijkan qaybaha kale oo soo gudubto qaybta labaad aan ku soo qaadanayna waxay tahay raxmo muuse maxamuud aan isla daawana idan waa gabar aad u cod markii aan fiiriyay barnaamijkeeda aad ii qanciyay heesteeda music la'aan codkeeda ma sha Allah hadii aan ku daalinin aan isla daawana bal waxyar magaceeda ما شاء الله وندو هاي مقعوا رحم موسى محمود كيما دي دقمدا دركينلي كنا ترتميس هاستي سينب لبا دغخ جعيلكاغي هايو هاي هروغل waxaan u maleynayaa macnaha qoftan waxay ku tartamaysaa siina bal dhagax fanaan weyneed heesta ay ku tartamaysaa waxa la jecelka yahayo qofkan macnaha waxa u jeedaan horta laba jaanis buu heshay inay soo bandhigto macnaha talentigeeda ama codkeeda macaan tan labaad jacayl inuu hayso ila taa maleynayaa sababta qof walba wuxuu soo qaato markaas daawan asxaabta jacaylkaaga hayo habeen hurdaka masixide dararatii mahargalo hadana kugu heelanahaye jacaylkaaga hayo habeen hurdaka masixide dararatii mahargalo hadana kugu heelanahaye hubal adigay hodo halbowlaha dhiiga qaadiyo halista wadnahay ما شاء الله وحاسة عودك واسهل ما حتى نداها كده بحيره وسوف فيرنا اصحابتي انا تجعلنا كمين ميدي كحرم قفت انا اوجدان معناها وما شاء الله خف اد عود مع فنان كهيستا قادي ايد هاد بابا كلا قرنيس موسيقى لك ديمان بالي داوانا hubal adigay hodo halbowlaha dhiiga qaadiyo halista wadnahay jare hawaawigaada ibaday hogaygan ku moodaya harada baanku qaba hawada ka daawada hawaawigaada ibaday hogaygan ku moodaya dareenka codka laxanka jiibta waxa dhan geeyan ku mooday qaabka ee u jileys aan ku dhahay fanaan dhaafo laakiin qofka nasiib mu yeelanay macnaha waxay soo bandhigto fanaanimadeeda haday jaanis haystaa dad badan oo noocan ma jiraan asxaabta asi daawana bal banku qaba hawada ka daawada haddii aynaan isline ambana way wada heshiin naftaydan halaynaya haddii aynaan islin ambaynan wada heshiin naftaydan halaynaya يا سلام haddii inaan ishelin naftaydan halaynaya kaal arigan ku dhaca codka looqda jiibta masraxa kulli qofkan macnaha way u qalantaa fanaan inay noqoto fanaan dhaafilo maksar la'aan la heesay muusig la'aan la heesay يا سلام رحمة موسى محمد runtii annagana aad baad horta aniga shakhsiyan aad baad ii qiiro gelisay ما سندي سو shakhsiyan wallahi gudiga oo jeedaan macnaha ninka dhaxda ku jiro waxa dhahay aad ba معناها إيه غير جلسة أنا حتى هذا عند داوداش داونيس أنا حتى خفك معناها أب إيه معناها غير جلسة هي استخفك وخلاص معناها قف درين كجرا إلى كاد أنا أصيد داونا بل محبرو codkaaga masraxiyadda aan kula kaftamo ما شاء الله heeskan si dareen laad u qaatay
hoogi baad saa u soo qabsatay hoogigaan ku moodaya maasha allah waxbaa jira soo ma aad oday xariftana bilaabo mujeedada aday qofta waxbaa jira jacayl ma jira barbara la wax zaman moogtahay dhib ma lahan caadi waay laakiin qofka macnaha waa soo saarteen aad ama stii si daawada yaad waa anigu bay iga hadlaysaa isku malaha war hal isweydiiyo ma hadee dhankayga ha mahadsanid raxmo muuse maxamed maasha allah nolosha iyo dareenka iyo firfircoonida iyo kalsoonida iyo codka soo jiidashada leh ee powerkiisa wata darteed anigu laba kamid ah guddiga macnaha waxay u saareen anina waxaa u saaray sidaad ujeedaan macnaha asxaabta anaad u jecelnahay waxaa dhiman shimaali bal ila daawada asigana macnaha qofkan iyo gabadhan oo fanaanada ee soo macnaha uu warbixiya ama uu sheego natiijadeeda maasha allah maasha allah maasha allah أنا محيي السجن. والله أنا ما حاجة سوقي وتاجي عارفك عرفتك شو كازو بلا رمضان أنا شمالي ساكي هرتو حميدان كله ما شاء الله هاي حاجية يوكا عررين حاجي ماشي ما بحيو أصعبت أسوي جدا معناها يعني وهذه شيء شمالي معناها خفت وبكير ولا على عض كذا واحد معناها فنان فاهم وقذا مكت وتاجي حاجي معناها سبحان الله يعني سربار حاجي مضمنه يعني waxay taagan tahay il daawado nibka mid keenaysa marka qaadaysid ani gabar ma moodin hay marka hadii ilaahay halko ku alfo adka san ka bedel ma baamde ani dhankayga ha ما شاء الله رحمة واديك ما شاء الله horta aniga inaan sida ujeedaan macnaha qofka labaad aan soo qaadanay barnaamijkeena ku soo qaadanay gabadhaas raxmo waa ujeedaan macnaha aad bay cod macaan tahay guddiga saddexda isku raaceen ha intaas macnaha waxaa noqon kara qof dadaal muujiyey qof ka go-an tahay qof hami u leh qof hibad ilaah u siiyey qof walba maheysi karo asxaabta aad ku jecel lahay halkan ayaa kusoo gogweynaa barnaamijkeeni ku saabsanaa macnaha tartanka heesaha ee ka socda magaalada muqdisho ee qabanaysa idaacadda FM idaacadda wadnaha FM aad iyo aad baad umahadsantihiin sida quruxda badnaa oo daawataan barnaamijkeena sidaad quruxda badnaa ula socotaan mar walbaan oo dhiirigelinaysaan asxaabta waxaan idinka codsanaynaa please adiga madaxaaga ayaan wax ku nahay waxaan ka codsanaa subscribe inaa noo saartid videogana like saartid commentiga hoosna wareeb macnaha commentiga aad buu muhiim inoo yahay wixii dhiirigelin ah wixii ra'yi ah wixii talaa noo haysid iyo wixii macnaha wax ka bedel ama wax kusoo darid ah barnaamijka badan oo idiin soo wadnaa madaxiina ayaan wax ku nahay asxaabta inaad ku jecelahay please waxaan idinka codsanaynaa subscribe aa noo saartaan khayr badan idin dhafna insha allah